السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada reer banaadir insha allah waxaan jeclahay tacsiya in idinka guto kolley dhowr tacsiyaa lasoo sheegay beesha qalmashuwe waxaa yani hadda ay ka baxeen tacsiyo waxaa geeriyooday kaaba qabiilka beesha siidii khaliif allah u naxariisto ilaahay maaragtay ha waafajiyo qowla thaabit qabrigiisa ilaah ugu waasiciyo dembigiisa allah dhaafo ehelkiisa samir iyo iimaan allah ka siiyo kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur addunya ayaa saas iska ah waa nolol gaaban kun fi dunya kaannaka gariib aw caabiru sabiilin sida cabdullahi ibni cumar laga soo wariyey adduunyada ku ahaaw marti waqti yaray meesha loogu talagalay joogaysaa ama haddaa wadda goynaysid meeqay kaa qaadanaysaa wadda inaad goysid marka adduunyada saasaa laga soo qaatay wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur nolol gaaban waay waa raaxaysi gaaban saasuu ilaahi subxana wa tacaala yiri dhanka kale waxaan saasoo kale tacsiyi u diraa eheladii iyo qaraabadii ka geeriyooday walaalkeen ajax cabdi muriidi dheere ilaahay maaragtay saasoo kale asagana ha u dembi dhaafo ilaahay ha u naxariisto qabrigiisa u waasiciyo ilaahay ha ku sugo qowla thaabit yani waxaan kulli imtixaan waaye ilaahay subxana wa tacaalana siyaabo kala duwanoono imtixaama walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashiri الصaabiriin aladiina ida asaabathum musiibatun qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waxaan leenahay ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun mowtadeena kulli inta lasoo sheegay intaan lasoo sheeginba qaar kale oo aan lasoo sheeganaa jirto kulli maaragtay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u dambi dhaafo annagana bacdigood ilaahayna ma fidnayo taas intaas uga haraa dhowr oo shir dhacayay maalmihii lasoo dhaafay dhinacana odayaal ku shiraayeen dhinacana odayaal ku shiraayeen oo ku saabsan doorashooyinka beelaha banaadiriga marka dhinacan odayaal waxaa qabanayeen shirar oo dhahayay maaragtay kuraasta hala dahafuro macnaha waxa waaye sida ayaka afkooda ka sheegeen waxaa loo dahafura 49 qabiil marka meeshan 49 qabiil oo dhahayso hana loo dahafuro ma joogto yani qabaa'il maaragtay iska tiradooda kooban tahay maaragtay shir qabanayo yani waxay u advocate garaynayaan 49 qabiil horta 49 qabiilka isku yimaadiinba hadhahaan maaragtay anaka doorashooyinka naloo daafuro masaladaas laftigeed in meesha lagu soo daro way inay maaragtay meesha ka maqnaato maaha aawe 49 qabiil oo dhahayo anaka doorashooyinka inaan qayb ka noqonaan rabnaa aawe dad maaragtay oo tiradooda ay kooban tahay ayaa meeshiisu 49 qabiil loo qabanaa doorasho haddii la yirahdo oo 5 kursi odayaashiina hadda meesha soo fadhiistay qabaa'isha ka socoteen idinka meeqa ay jaanis ay leeyihiin 5 kursi 49 qabiil uu tartamaya haddii la dhaho meeqa jaanis ay leedihiin intee fursad aad haysatiin marka runtii iska fowdo waaye fowdeen waaye wax kale ma aha fahamtay weli sida soo gaartay maaragtay horena aan aniga si gaara maaragtay aan u dareensanaa dhowr jeerna waa kasoo hadlay ya guddiga doorashooyinkay wax ku leeyihiin waxayna yani rabaan in wax u musuq maasuqaan berito haddii maaragtay beel kursiga ku fadhisay oo kursiga ku qorneed haddii maaragtay inta laga saaro beel kale la geliya halyaabin camal way yani hadda hordhacayna siinoyin wax kale inta maaha
maxaa kaloo u malaysaa marka dad maaragtay oo rabo in wax loo musuq maasuqo ama doorashooyinka ay noqoto doorasho musuq maasuq miiran dad rabo waaye. marka dhinaca kale qabaaishii kuraasta ku fadhiya ayakana shiray qabteen shalay shireen waxayna maaragtay shirkooda ka aqriyeen war-saxaafadeed ka aqriyeen war-saxaafadeedkana waxaa u badnaay cambaareyna u badnaay oo ay u jeedinayaan ama ay ka jeedinayaan guddiga doorashooyinka oo markaas u muuqdo inay yihiin kuwo yacni garab maray habraacyadii iyo xeerarkii ku qeexnaa yacni heshiiskii oo doorashooyinka waa dhinac mareen fahanti siisaba guddi doorashooyin markii lu yirahdo maxaa loo sameeya waxaa loo sameeyaa inay doorashooyinkaas ay maamulaan shaqadu wax kale inta maaha hadda laakiin qabaa'il oo kuraas aan haysanin ay shiro la yeelinoyna lagu yiri kaas macnihiis maxaa waay hoolaa loo dirsanay faraha la galeen soomaaliyana runta fiican musuq maasuq markii la dhaho arrintaas caanay ku tahay maalin horaaba la sheegayay wasiir yani wasaarada ka mid ah arrintaas ka shifay wuxuu sheegay hoola asi aan loo dirsan oo howshiis ahayn oo wasiirkiisa joogo wasaaraddeedana ay shaqaynayso oo faraha la galay mafahanti waxyaal badan oo maaragtay meesha kusoo tuuray si uu u foodeeyo oo maaragtay u ceebeeyo wasiirka koowaad mafahanti markii laga hadlayo musuq maasuq si kale ma ku shaqaynayso ilaa maaragtay qof kasta oo awood yar wax yar oo awood sulta yar la siiyo wuxuu faraa la gelaa hoolo aan howshiisa inaan loo dirsanin marka laakiin cidda howsha u dhiibatay oo howshaas u igmatay ayaa laga rabaa inay soo hordhigaan isla xisaabtan oo adag marka kuley odayaashan dhaqanka waxay cabasho u diraayeen cabasho maaragtay ay gudbinayeen madaxa sarsare ee dowladda oo uu ka mid yahay maaragtay ra-iisul wasaaraha waxay tilmaameen maaragtay inuu ra-iisul wasaaraha uu ballanqaadi u sameeyey oo ballanqaadiyadiisana ay ka mid tahay inay dhacayso doorasho hufan doorasho xor iyo xalaal ah yacni xor iyo xalaal markii lagu leeyahay waxay u daha furan tahay isla beesha kursigaasi u daha furan tahay ma fahanti yani isla beesha kursiga haysto beelaha qaarkiis waxaa lagu arkaa hadda maalin hore waxaa lagu eedeynayay guddoomiyaha aqalka sare lagu eedeynayay cabdi xaashi kursigii asaga lala tartami lahaa inuu xirtay marka taas yani waxay lid ku tahay daahfurnaanshay lid ku tahay hadduu kursiga asaga xirto qof oo asaga jufidiis kamid ah jufidiisa hoose kamid ah oo kursigaas maaragtay uu ka dhexeeyey oo u hanqaltaagi karo oo dhigi karo maaragtay aniga doorashada laga qeyb geliyo ma jiri doonto mafahanti marka xor iyo xalaal markii lagu leeyahay waxaa waye beeshaas kursiga iska leh xubnaheed in maaragtay ay ayagana xor ay u yihiin inay maaragtay doorashooyinka ay ka qayb qaataan oo qof kursiga uusan xiri karin laakiinse faragelin oo bannaanka ahaa jirtaa beel kale oo waxba idinka dhexaynin kursi aada wadaagin ayaa waxay leedahay hanalala tartansiiyo beeshan ama kursigaana looga qaado see ku dhacee si kale kuma dhici karto in musuq maasuq la adeegsado sababtoo ah dastuurka ba kasoo horjeedaa kursigaas waxaa u tartami karo keliya beesha ku qoran arrinta saas way marka
cabashada hadda odayaashii ay soo gudbiyeen arrimahaasay la xiriirtaa, waxayna wajahaysaa maaragtay cambaarayn oo la xiriirta guddiga doorashooyinka oo sameynaya tasarufaad oo laa'iq aan ahayn oo aan bannaanayn sameynaya. marka oday dhaqanyaashaas waxaan aan ku dhiirigelinaa in maaragtay ay cabashada ay joogteeyaan si loo arko in arrintan daacad ay ka tahay. laakiin markii waqtiga ciriiri uu noqdo kala ordi wax ma tarayo, ma fahanti. laakiin anima umaleynaya inay maaragtay waqti daaha tahay, weli doorashooyinka ma bilaabanin, inay maaragtay waxyaalo badan horta oo gafay oo aysan ka gaaranin waa jiraa, waxyaalo badan oo aysan ka gaaranin waa jiraa, laakiinse kuwa dhiman oo ay ka gaartaan haddeer yaysan ka aamusin in maaragtay xaqooda aan laga fargelin, xaqa ay meesha ay ku leeyihiin inaan la duudsiinin, uu qof kale duudsanin, ama maaragtay xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka ha ahaado, ama ha ahaado maaragtay qabiil maaragtay kursi aan haysan ha ahaado, xaqooda inaan la duudsanin. qareeno aa jiro ya oo dhexdhexaad ah oona xur ah, ayaka laftigooda in lala xiriiro si ay u kor joogteeyaan doorashooyinka. hal dhinac keliya mala fiiriyo, jaanisyada in la badiyo si aan xaqaaqa loo duudsanin, mafahanti. beesha caalamka laftigeed, amisom laftigeed, booliiska soomaaliyeed, kulligood in lala xiriiro oo lala socodsiiyo arrimaha khuseeya doorashooyinka iyo musuq maasuqa lala maaganya. doorashooyinkan korjoogtayna u baahan, xataa haddii suuragal ay tahay in telefishinada la adeegsado inay maaragtay si live ah uga soo tawiyaan si loo arka maaragtay waxa meesha ka socda. markaas maaragtay waa fududaanaysaa, xataa waxay u fududaanaysaa guddiga xalinta khilaafaadka u fududaanaysaa. qofkii markaas xaqiisa la duudsado si sahlan in loogu soo celiyo, cabashooyinka in loo xaliyo si sahlan way fududaanaysaa. haddii ilahay idmo intaas idin dhihi lahay. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.